dagaaladii ugu waaweynaa saxaabadu gashay waxaa ka mid ah xarb alqaadisiya ciraaq meeshan la yidhaahday ku taalla ciraaq waxaa inteeda badan haystay Persia dowladdii Iran baa ka talin jirtay dee caasimadoodii madaa'in waa Baqdaad dhinaceeda kama foga maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas Iran ee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dagaalka qaadisiya dhowr boqol oo kun oo gaala iyo 30 kun oo saxaaba ah ay sortaagan iyo intii la socotay saxaabada waxaa hogaaminaya 10 المبشرين كامده سعد بن ابي وقاص بعيدا كوطا qolada kalena waxa hogaaminayeen Rustam la yiraahdo jananadoodii waaweynay laga dambeeyay kamida marka Rustam wuxuu rabaa bal nimankani mentally siday u fakarayaan inuu ogaado wuxuu Sacad weydiistay inuu u soo diro cid wada hadal bal u dhexmaro nin baa loo diray uu soo celiyay mid kale bal ii soo dir waa loo diray saddex nin baa kolba mid u tagay صدح الصحابي هي كل بمدو تجي مثلا ميت كم يدون هذين سوقاتنا ربعي بن عامر با كمدا نكن روح الربيين هنش بيو صحابة التنوط المام وحن سو صاري قاتش أي نقالة دون هديتين نقالة بحيو مركا سريرتي بقرطوية دا ميلا دقي دبتنا ريد كاربتسكا أيالا وراي ولا دو بلادن نكن مسلمين تكسعدا فرس يرو قابن بوطا وانا intaasoo bilood dagaal ku soo jiray den inay ka muuqato adduun iyo daldalaalkii maaha Rabi ibn Amr oo farsiro gaaban wata soo baxay dabeetana markuu soo gaadhay meeshoodii buu iska soo dul eriyay faraskiisii kama degine hay culimada taariikh sheegaan barkimooyinkii meesha teedsanaa mid ka mid uu faraska ku xidhay dabeetana uu ka soo dhaadhaco xaq uu soo dhaca waxay yiraahdeen boqorka saan looguma tago hubka dhig boqorka adoo hubsita looma tago wuxuu ku yiri boqorku isaga ay yeedhay anigu uma rabini haddaan rabtaana sidaydan baan ugu tagayaa haddaydan rabin waa iska noqonaya boqorkii waa loo sheego waxa la yiri Rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinka ay yeedhay ma hubkaygan gelaya ama waa iska noqonaya soo daayay buu ku yiri ma hubkiisa soo daayay isagoo wixiisi tuu soo galay su'aal baa la weydiiyay markaa ma jaa bikum war maxay idin keenay abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya ka soo maxaa idin keenay saxari uga timaadeen wuxuu ugu jawaabay الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إلهي بأن سوابحيي إن نكسر ردتك عدي ودونه الضوما هيس الضون سنة يانو إلهي الضوما ورقنه وحنوسع النابلين البنادم كحرينه مخلوق خلينا وأدون سن إلهي يقول إن يدتكو الضوما ونقضان ودتكو حرية هلان فهنوسع النابلين cibaadadu ilaahay gaar ku noqoto waxaanu kala u soconaa buu yiri inaanu dadka dunida ciriirigeeda ka saaro balaceeda u saaro haddaba ninkan kaarbatiyada cascas dhigtay arshiga weyn ku fadhiya ayuu wuxuu ku leeyahay ciriiriga ka saaraya ciriirigu qalbiga kan adduunku qiimo lama fadhiyo weyn kaarbatiyadan iyo waxaan ninkan ku fadhiya wax weyn oo qiimo uma sameynayso waxa kala fiican عدالة يا مارتاي التوحيد كيسة الدين تيسي وحا استاكلا فيه مركا وحو ليه الدون كوا نبات كو قبطايه عريري كان الدون من كهاب بحينا يا وحان كو صار يا محي بلع الدون كان كو جيني يا بولي وحان كلاو سعود ابولي ديمها الظلم قوضا ينان كاك حينو اسلام كعدالة دي سكو صار يعني موقف كان وحو الصورة اياه نينكا كان ولو ميشن نينكا حولا بدن وكا بدبدka adduunyo kaga fiican uu taagan yahay inuu mu'taz bidiin yahay diintiisa wax u dhiganta inaanu jirin inuu rumaysan yahay taas waxay keensanaysaa inuu qofkan diintiisa ilaashado ilaahay wuxuu leeyahay hatta hadii sida kale dhan la idin ka xoog bato wala tahinu wala tahzanu wa antum al'auna in kuntum mu'minin war hal liidanina baa leeyahay murugoonina idinka koreeya hadii iimaan u jiro dad rumaysan tahay rabbiga ay ku xidhan tahay adaa koreeya sallallahu alayhi tilmaamno oo saxaabadan reer Makka ah ee Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam rabbiyay say u muuqdeena en markii Bayt al-Maqdis muslimiintu ay furteen Bayt al-Maqdis ninka furanay ciidankaasna ninka loo 10 al-mubashirin hogaaminay Ubaydah ibn al-Jarrah ayaa ciidamada watay
dabeetana qoladii masiixiyiinta meesha joogtay waxay yidhaahdeen shardi ah furaha sulxi baanu gelaynaa saasaananu idinkula heshiinaynaa laakiin furaha wuxuun baanu u dhiibaynaa amiirulmu'miniinkiinu ha yimaado isagaanu furaha ku wareejinaynaaye sidii buu ku soo baxay abu cubayda cumar buu la hadla wuxuu yidhi nimankii saasay yidhaahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaale cumar wuu soo baxay wuxuu rabaa firihii bayt almaqdes inuu la wareego meeshana isaga furaha loo dhiibo mucaahadadii la galayna sidaasi ay ku hirgasho wuu soo socday markuu meesha in yar usoo jiray ayuu wuxuu soo maray dhul dhiidhiyo roob helay oo dhooba midhana dabeetana daabadii uu fuushanaa intuu cumar ka daadegay oo labadii kaboodna la baxay ayuu labadii kaboodna halkan kusoo qaatay neefkiisiina soo hogaamiyey dhoobadiina iska soo dhex socday abaa cubayda iyo ciidamadii muslimiinta raggii soo dhaweynaya ka hor yimo abaa cubayda wuxuu yidhi cumarow ma jeclin maa yusiranii ana ahlu lbaladi istashrafuuk xadiidka xaakim warinayo magaalada dadkeedii iyo madaxdeedii inay ku arkaan sidan adigoo ninkan faydan ee cagaa dhoobada kule ah in lagu arko maan jecli buu leeyahy cumar eraygii wuu dhibsaday adiga cidan awah low yaqul hada hayruk buu yidhi abaa cubayda waxaan jeclaan lahaa midaan adiga ahayn inuu yidhahdo abaa cubayda adiga waa kaa xishoonaya buu leeyay laakiin waan ciqaabi lahaa nin kaloo aan adiga ahayn inuu yahay marka waa ka xumay buu leeyahy low hayruka qaalaha mid aan adiga ahayn mu warkaasi ka soo baxa buu leeyahy dabeetana cumar wuxuu dib ugu noqday taariikhdoodii abaa cubaydaba waa ogiyey laakiin wuxuu yaro raboon isagoo amiirulmu'miniinku u muuqda amiirulmu'miniin xagga dharka iyo haybadda inuu meesha yimaado laakiin cumar wuxuu ku leeyahay waxaanu ahayn inaa kunaa adalla qowmin dad aada u dullaysan baanu ahayn ilaahay diintan buu nagu ciseeyo dad nagaga dhigay buu leeyay markaanu carab ahayna dhulkaygii joognay dad dullaysan baanu ahaan jirnay laakiin ilaahay wuxuu nagu ciseeyo nagu sharfay diinta tan haddaanu ka raadina buu leeyahay sharafta meel aan diintayada ahayn ilaahay waa na dullaynaya ilaahay diin buu nagu sharfaye waxaan diin ahayn haddaanu sharaf ka raadina waa dulloobaynaa maxaynu uga dan leenahay waxaynu uga dan leehay qofku muctaz bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidhbidhkan adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taasi waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xejisto ilaahay isagoo nebi maxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam wa min waraa'ihi saxaabada lala hadlaya waxaa la yidhi fastamsik biladii uuxiya ilayk inaka calaa siraatin mustaqiim wainahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun ilaahay wuxuu yidhi xejiso fastamsik biladii uuxiya ilayk wixii lagu soo waxyooday xejiso waayo jid saxa baad ku sugantahay baa ilaahay leeyahy jid quman baad ku taagantay wainahu ladikrun laka waliqowmik qur-aankaas iyo waxyigaa iyo diintaa laguu soo dejiyeyna sharaf buu kuu yahay adiga iyo tolkaaba baa ilaahay leeyahy ilaahayna wuu idin weydiin doonaa marka wuxuu ugu qaalisanaa inaynan siisanin maxay wax liita man kaana yuriidu alcizata falilahi alcizatu jamiica الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وحلنا شيء كواد حويان إنه غربة كجبحنه وحي أهل كتاب كهر إلهي كتل المامين كجبحيه إنه كجبحنه وحي صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كجبحذي إنه معتز كوهانه ضد كفانية waan qarsanaynin diinta tar inaynu naqaano